رمضان wanaagsan duhur wanaagsan halkani waa ka yeeran qodobada ugu doorka roon warka duhur waxa kamid ah madaxda sirdoonka iyo amniyaadka al-shabaab u qaabilsanaa shabeellada hoose iyo xubno la socday oo lagu dilay howlgal qorsheysan oo ka dhacay degmada Janaale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo isku shaandeen cusub iyo magacaabis ku sameeyay golaha wasiirada Soomaaliya sidee loo bixiyaa sakaatul fidriga yaana mudan in la siiyo waa warbixin warkeena duhur aad ku maqli doontaan dagaal u dhaxeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo maamulka Soomaaliland oo digniin adag ka soo saaray sugidda amniga inta lagu guda jiro maalmaha ciida iskuulka al-Khaliij oo kaalinta saddexaad ka galay tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ee Kenya ay qabato jaamacadda Somaliland ay taabageliso Xamaas oo sheegtay inay weerar ku dileen ciidamo ka tirsan Yahuuda iyo Shiinaha oo dhultus military ka bilaabay badda lagu muransan yahay ee koonfurta Shiinaha markale duhur wanaagsan waa axad taariikhduna waxay ku beegan tahay 7 bisha afraad ee abriil sanadkuna waa 2024 warka duhur waxa idin la socodsiinaya Cabdicasiis Saciid Beereed yaanigu Ifraax Ahmed Kaakiya waxaana soo saaray warka duhur Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ee u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilownay madaxii sirdoonka iyo amniyaadka al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose iyo xubno la socday ayaa lagu dilay howlgal qorsheysan oo ka dhacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose wariyeena Cabdinaasir Maxamed Maxamuud ayaa warkan inoo faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgal qorsheysan oo xalay ciidamada dawladda ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo lagu beegsaday xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku jiraan saraakiil sarsare waran qoraal oo ka soo baxay dawladda ayaa lagu sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee commandoska danab ay xalay howlgal qorsheysan ay ka fuliyeen deegaanka hanti wadaag oo hoos yimaada degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan ayaa lagu dilay 4 xubnood oo isugu jiro saraakiil iyo maleeshiyad uu ka mid yahay sarkaal lagu magacaabo Subeer oo ahaa madaxii sirdoonka iyo amniga maleeshiyada al-shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose u qaabilsanaa sidoo kalena waxaa lagu burburiyay howlgalka taliso ay maleeshiyada ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Hoose sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya ciidamada commandoska danab ayaa sidoo kale la sheegay in ay haatan ay wadaan howlgallo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab gobolka Shabeellaha Hoose muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay dagaallo culus oo u dhaxeeya maleeshiyada al-shabaab ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyadoona kooxda al-shabaab halkaas lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan